madaxweynaha maamul goboleedka galmudug maxamed axmed caalin ayaa ka hadlay sababta maamulkiisa iyo maamulka puntland ay ku diideen ka qaybgalka shirka dhamaadka bishan ka dhici doona magaalada istanbul ee dalka turkiga. madaxweyne caalin wuxuu sheegay inay ogaadeen in shirkaasi ay ka qaybgalayaan kooxo xag jiriina oo ay ku jirto kooxda al-shabaab, sidaasi daraadeedna aysan meel la fariisan karin kooxahaasi isla markaana ay go'aansadeen in shirkaasi aanay kaba qaybgelin. qadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayaan kula xiriiray madaxweyne caalin waxaana ugu horeyn weydiiyey sababta ay shirkaasi ku diidan yihiin. runtii waa jirtaa war-saxaafadeedku arrimaha keenayna waxa weeye mar haddii aanan ogeyn ujeedada iyo sababaha loo qabanayo shirkaasi waxa uu yahay dadka faraha badan leh ee lagu magacaabo ururada bulshada iyo odayaashii dhaqanka oo aan u aragno waqtigan xaadirka ah inaysan ku habooneen oo shaqadii u socotay oo ay u xareysnaayeen waqtigana oo waqtigii ay soo dhowdahay wax la rabay in la diyaariyo sidii looga gudbi lahaa dowladda ku-meel gaarka ah. arrintaas darteed ayaan maaragtay u diidnay iyadoo wax wargelin fiican oo rasmi ah oo faahfaahsan aanan ka haynin. marka aad leedahay ururada bulshada iyo dadka faraha badan oo la casuumo oo kale yaa la casuumo oo aad isleedahay gaar ahaan ma aysan ahayn in shirka laga casuumo, maxayse adinka ka siyaasi ahaan idin dhimaysaa? xaqiiqdii ururo waxaa jira xag jir ah oo xag diimeed ah ayaa maaragtay maalan meesha ku jira kuwaasina hadee ilaa iyo hadda ma u arko aniga wax oo qof xag jir ah in hadda siyaasadda Soomaaliya oo jirtaahi iyadoo aan meel wax la isla dhigin oo aan heshiis rasmi ah iyo wax wada dhisid ah aan meel hore la isugu keenay aysan jirin ama oo aan la isku sii sheegin in hadda la yiraahdo waxa laga qayb galo shir inay adag tahay taasaa keenaysa kuwaasaana ka mid ah. marka aad leedahay xag jir oo kale ma al-shabaab ku jira shirka? taasaliyo ma waxaad hesheen liis ku saabsan dadka shirka ka qayb galayo oo aad ku ogaateen inay ku jiraan dad xag jirina? maxaa ku xaqiijisay? runtii dadka meesha tagay qaarkood ayaa soo sheegay, laakiin ilaa iyo mar badan oo la isweydiiyey waryaha iyo liiska ma nala tuso ma aragno ma waa la waayay inay la helo liiskaas waa suurtageli weyday. laakiin hadda dadka ka qayb galay uun meesha jooga qaarkood ayaa warka laga helay. marka tani markii aad soo saarteen war-saxaafadeedkan ma jirtaa wax ka socda beesha caalamka ama wadamada arrimahan daneeya oo idinla soo xiriira oo idinka qanciyay waxyaabaha aad tabanaysaan? maya ma jirto. dadka siyaasadda Soomaalida indheeyahay waxay sheegayaan in maadaama aad joogtaan Ethiopia go'aankana gudaha Ethiopia ku gaarteen fakarkan uu yahay mid dhanka Ethiopia ka yimid oo maaragtay ay dawladda Ethiopia fakarkiina ay iyadu ka dambayso, ma jirtaa taas? qofku hadda waxa asoo qaato asaga u taala, laakiin dawladda Ethiopia ama cid wakiil ah oo dawladda Ethiopia ka socota oo nala joogtay ama nala qaadatay ama nagala dooday midna ma jirto. runtii markaan sida xaqiiqda ku sheego fakar anagu qof walba markii hore arkay kabacdina aan iskaaga nimid ka sheekaysanay ka doodnay markaas kabacdina aan soo wada saarno ahaa, laakiin cid hadda aan Soomaali ahayn oo xataa kale oo nala joogtay ma jirinba. waxaa jira in horey wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ay u sheegeen in cid walba oo ka hortimaada hanaanka looga gudbayo xilliga kala guurka loo aqoonsan doono inay caqabad ku yihiin nabadda Soomaaliya ama loogu yeeri doono spoilers oo ay wax laga qaban doono. ma laga yaabaa adigu inaad liiskaas gashaan mar haddii aad diideen shir ambaqaad u sii ah ama maaragtay lagu falanqeynayay hawsha xilliga kala guurka ah? shir kasta oo roadmapka ku saabsan oo la tagayo la iskugu yeeray waxa loo tagay ajandihiisa oo dhan wax la og yahay ayuu ahaa, wax lagu heshiiyey oo loo wada jirana waa laga soo wada saaray. marka sababtii markii hore loo tagayo la fahamsanaa oo ahayd
إن وحي لندن كدن بي وحي سعمي وحي هرمرو لقاري وحي حكا الجرا إن لقى هذا الله أي أهيد وحان هين هذا صباحين وحي أبا أنت مركز إن اللي فهمي لكن أنا ما ديد ما أنا شهور تاجين رود مابكي معها مدة لبان وحواي شخصيات هدي أي جرام بوحديدة ياهي واحد بده جوا ما يا هذا أنتي أي صحيح يا سعيد هاد إلى هذا الكورت من مجرين وقدام بنتي نهشيش وذا جرأة وباش عالم كنا جوتواتي هل كان لو وذا جاري وارينا دياران هنا هاي marka hadda muxuu yahay go'aankiina kan xiga maxay tahay talaabada aad qaadaysaan yaas idinku wehliya go'aankiina marka la fiiriyo saxiixayaasha kale ee road map oo aad isku fakar ka tihiin in la diido shirka Turkiga markii aanu halkan wada joognay kulli waxaanu isku warsanay inaan cid lagala soo xiriiray iyo cid liiskaas haysaahi inaysan jirin laakiin cid kale oo hadashay oo aan ogahay ilaa hadeer ma jirto ama ragiina saxiixayaasha ahaa kamid ah inteena labadeena maanta uun hadashay ma ogiya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin oo qadka telefoonka iigu waramayay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia